الله عليه وسلم halkan waxay maanta ku dhawaaqaynaa kulli wali maqlaya Soomaa ansixintii natiijadii kumeel gaarka ahayd ee guddiga doorashooyinka qaranku ay soo saareen sida la socotaan natiijada kama dambaysta ah waxa dastuuriyan leh maxkamadda sare ee dastuuriga marka qaraarkii ansixinta ah ayaanu halkan ku akhriyi doonaa haddii ilaahay dhaahdo inagoo la soconna inaanay wax dacwadi jirin ama wax cabashoo la soo gudbay aanay jirin hore inaan garnaq u gelin qaraarkaasaanu ayaanu ku dhawaaqaynaa marka qaraarkaan idiin akhriyaya isagaana ah maxay hayday gama dambaysta ah بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية الصوماليلاند محكمة سرية دستورية waxay soo saartay qaraarkan nambarkiisu yahay maada obliig da'da eber 5 2017 kuna taariikhaysan 28kii bishii 11aad 2017 ujeedada qaraar ansixin natiijada doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland maxkamadda sare ee dastuuriga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland markay aragtay qoraalka sumadiisu yahay kaada obliig xaka obliig hal 7 obliig 2017 ee ku taariikhaysan 23 bisha 11aad 2017 kana soo baxay guddiga doorashooyinka komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedadiisuna ay ahayd soo gudbin natiijada hordhaca ah ee doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland 2017 kuna lifaaqan yahay shaxda tirada codadka natiijada kumeel gaarka ah ee doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland markay u cadaatay hawlgallada guddiga doorashooyinka qaranku fuliyay oo dhammaan waafaqsan qodobada dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala ah qodobka 8aad 11aad 12aad 13aad iyo qodobka xeer number 14 ee 2011 iyo xeer number 2001 iyo lifaaqyada koowaad labaad ee wax ka bedelkay kaabista lagu sameeyay xeerka iyo xeerka 730 ee xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo lifaaqyada wax ka bedelkay kaabista xeerka lagu sameeyay markay aragtay tirooyinka codadka guud ahaan iyo gobol ahaan ee doorashadii madaxtooyada qabsoontay 13kii bishii 11aad 2017 ee saddex xisbi qaran oo kala ah xisbiga koowaad xisbiga ucud oo helay 23,141 cod una dhiganta 4.17% iyo xisbiga kulmiye oo helay 305,909 cod una dhiganta 55.1% iyo xisbiga wadani oo helay 226,029 cod una dhiganta 40.73% markay u cadaatay inaanay jirin wax cabasho ah oo ku saabsan natiijada kumeel gaarka ah ee ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka qaranku iyo guud ahaan hanaanka doorashadu u qabsoontay oo ay maxkamadda u soo gudbiyeen xisbiyadu muddadii sharcigu dhigayo oo ah 7 maalmood gudahood kana bilaabanta maalintii natiijada kumeel gaarka ah lagu dhawaaqay sida ku xusan qodobka 66 faqradda koowaad ee xeer number 2001 markay hubisay xisaab ahaan iyo sharci ahaanba dhammaan qoraalada raadraaca ah ee xafiiska guddiga doorashooyinka qaranka iyo natiijada kumeel gaarka ah ay ku dhawaaqeen 22kii bishii 11aad 2017 markay aragtay qodobka 6aad faqradiisa saddexaad ee xeer number 2001 oo sheegaya in maxkamadda sare marka ay hesho qoraalada raadraaca ee xafiiska dhexe ee komishanka doorashooyinka qaranka isla markaana hubiso xisaab ahaan iyo sharci ahaan doorashada inay ansixiso natiijada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka markay aragtay dhammaan asbaabta kor ku xusan oo dhan waxay soo saartay qaraarka maxkamadda
maxkamadda sare dastuuriga ahi kow waxay ansixisay natiijada kumeel gaarka ah ee doorashada madaxtooyada 2017 ee ay u soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka qaranka oo ah sidan kow xisbiga ucud oo helay 23,141 cod oo u dhiganta 4.17 boqolkiiba laba xisbiga kulmiye oo helay 305,909 cod oo u dhiganta 55.1 boqolkiiba iyo xisbiga wadani oo helay 226,929 cod una dhiganta 40.73 boqolkiiba taas oo sharci ah in xisbiga kulmiye oo helay tirada ugu badan codadka kuna guuleystay tartanka doorashada musharaxiintiisuna ku guuleysteen xilalka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo kala ah kow musharaxa koowaad ee xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi xildiid oo uu ku guuleystay jagada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland laba musharaxa labaad ee xisbiga kulmiye mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil shire oo ku guuleystay jagada madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland qaraarkani waxa uu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay 28 bisha 11 2017 guddiga garsoorka kow aadam xaaji cali axmed gudoomiye maxamed cumar geelle xubin cabdiqaadir axmed maxamed xubin maxamed faarax siciid xubin cabdiraxmaan jaamac xayaan xubin cabdiraxmaan xasan nuur xubin cabdilaahi cabdi aadan xubin cali shucayb sheekh ibraahim nuur xubin cabdiraxmaan xuseen caynaan xubin yaxya cali idriis xubin axmed diiriye qaalib xubin sahre ismaaciil oo ah kaaliyaha sare ee maxkamadda sare dastuuriga ah dhammaantoodna way saxeexeen intaasuu inoogu xidhan yahay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu